wanaagsan dhamaantiiba daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan halkani waa Somali Afos TV oo aan inaga soo gudbinayno magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya warbixin kooban oo markaasi aynu kaga hadlayno fanaankeena caanka ah Naasir Macalin Caydiid oo ku xanuunsanaya magaalada Hargeysa. Naasir Macalin Caydiid sidaan daawadayaal wada socono waxa uu ka mid yahay fanaaniinta Soomaaliyeed ee magaca iyo miisaanka ku leh ummadda Soomaaliyeed. waxa aynu markasana iyo sidoo kale goob kasana waajib inagu ah inaynu markaasi aynu caawino isla markaasina aynu u gargaarno Ilaahay ka sokow. Naasir waa fanaan caana inkastoo dadka Soomaaliyeed intooda badan ay wada garanayaan isla markaasina aqoon ay u leeyihiin. Naasir Macalin Caydiid horaantii bishan ayaa lagu soo booday iyadoona la sheegayo dhakhaatiirta qaar ay sheegayaan in markaasi dhakhtar dalka dibadiisa loo qaado. haddaba Naasir Macalin Caydiid nooce ayuu ahaa. Naasir Macalin Caydiid waa fanaan caana isla markaasina heeso badan sameeyay iyadoona ay dadka Soomaalida ay wada yaqaanaan. haddaba muxuu inooga baahan yahay inaynu caawino isla markaasina aynu garabkiisa istaagno. Naasir Macalin Caydiid wuxuu maanta ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaa in loo gargaaro isla markaasina garabkiisa la istaago. muuqaalo laga soo duubay oo markaasi social media dhaxmarayay ayaa sheegaya in xataa uu waayay noloshii guriga markaasi ay ku adkaatay taasoo markaasi ay ka mid yihiin in xataa uu waayay in kirada guriga ay ku adkaatay. Naasir Macalin Caydiid waxa uu sheegay in xataa imika murugada ugu weyn ee haysato ay tahay ubadkiisa oo uu leeyahay kirada guriga. haddaba ummadda Soomaaliyeed ay dhamaantiiba meel kastoo ay joogtaan waxa markasta iyo sidoo kale goob kasta aynu caan ku nahay inaynu markaasi aynu taakulino dadkeena tabaaraysan isla markaasina aynu caawino markaasina aynu garabkooda istaagno maadaama ummadda Soomaaliyeed intooda xanuunsanayna ay dadka Soomaaliyeed caan ku yihiin inay caawiyaan. Naasir waxa uu inooga baahan yahay maanta inaynu mar waliba aynu garab istaagno isla markaasina aynu dhaxda dhiisha iskaga xidhno si markaasi duruufta haysata uga baxo. hadda waxaa la rajeynayaa in la geeyo isbitaal dalka dibadiisa balse iyuu wax ka sugayaa inaga iyo sidoo kale Ilaahay maadaama aynu nahay ummad Soomaaliya isla markaasina caan ku ah istaakuraynta iyo sidoo kale garab istaagka dadka markaasi dhibaatooyinku ay haystaan iyadoo markaasi loo baahan yahayna in la iswada caawiyo maadaama Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankiisa ku yiri haddii ay isku naxariisataan samadan inaga naxariisanaya. ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxa laga codsanayaa ama aynu ka codsanaynaa cidii fariinteedana aragta inay markaasi Naasir Macalin Caydiid ay u gargaaraan oo markaasi ay caawimada ka soo qayb qaataan. muuqaal laga duubay ayuu daawadayaal eegi doonaa muuqaalkaasina nala soo daawada. waxay xisaabiyeen qof dhimira oo waa xisaabiyeen maanta bulshadii ama noola Soomaali garan Ilaahayna wuu ka kicin karaa. daawadayaal maadaama aynu muuqaalkaasi soo daawanay isla markaasina muuqaalkaasi uu muujinayo murugo iyo sidoo kale uu xambaarsan yahay markaasi qiiro aad u xambaarsan markaasi daawadayaal waxa inala gudboon markaasi inaynu caawino Naasir Macalin Caydiid fanaankeenii caanka ah ee Soomaaliyeed iyadoona maanta uu garab istaag inooga baahan yahay. warbixintaasi kooban ayaan daawadayaal ila soo socodsiinayay intaan warbixin noocan oo kale aan ku kulmi doonana waaniga iyo Nimcaan Cabdullaahi Qoorgaab oo inaga tagay sidaas iyo salaamu alayhi wa alaykum asalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh.